shirkiisan jaraa'id oo ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa Cali Maxamed oo raacada wasiirka hore wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ayaa kaga hadlayay xaaladda colaadeed ee ka soo cusboonaatay deegaanada bariga Somaliland taasoo u dhaxaysa dalka Somaliland iyo maamulka Puntland. Cali Maxamed warnacad ugu horeyn buu waxa uu digniin u diray madaxweynaha dawladda dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo isagoo uga digay dhaqdhaqaaq kasta oo ka wada deegaanadaasi socotay arrimahaasoo dhan waxaynu la soconnaa oo kale culayska siyaasadeed ee kala soo darsay Farmaajo maamulka uu madaxda ka yahay haddii ay tahay maamul goboleedyada Soomaaliya oo ay aad u kala fogaadeen qaarkoodna inay farihiisaba ka baxaan ay in yar ula jiraan haddii ay tahay nabadgelyo xumida ka taagan Muqdisho gudaheeda iyo haddii ay tahay mucaarad adag oo ku bilowday ninka odayga ah ee maamulka Soomaaliya madaxda ka ah dhammaan arrimahaas oo la soo darsay ninka madaxweynaha ah sida awgeed waxa muuqata in Masar Farmaajo uu go'aansaday in ulka ku baxaya uu kula soo galgasho xuduudaha Somaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya si uu badbaado iyo cimri dherer uga dhigto dagaallo ka dhex qarxa ummadda reer Somaliland iyo dadka reer Soomaaliya ee runtii deriska ah ee walaalaha ah sidaa awgeed waxaanu ugu baaqaynaa ummadda reer Soomaaliya inay ka digtoonaadaan dhagaraha uu maleegayo madaxweynaha xafiiskiisa xamar oo qiiq ka baxaya maanta ee qoriga dab kale kula wareegaya xuduudaha u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland isagoo kaga xuubsiibanaya kuna burburinaya wada hadalladii nabadeed ee dunidu ku talisay inay dhex maraan Somaliland iyo Soomaaliya si nabad ah ay ugu dhamaystaan arrimaha yar ee isugu keen hadhay sidii aynu laba dawladood walaa u noqon lahayd Somaliland iyadoo ka shidaal qaadanaysa soo jeedintii bulshada caalamka waxay diyaar u tahay in wada hadalladii u dhaxeeyay labada dal si dhaqso ah loo bilaabo waxaad samoodaa inuu arrintaa ka dhuumanayo Farmaajo oo uu doonayo sidii horeba Soomaaliya ugu jabtay dagaaladii ka bilowday Soomaaliya waqtinkii la isku oran jiray 40 sano ama dhowr iyo 30 sano ka hor inuu halkeedii ku soo celiyo waxaan markaa soo qaadanayaa mahmaah Soomaaliyeed inkastoo wax rag lagu mahmaah aanay ahayn waxa la yidhi inan yar oo hooyadii la jooga ayaa soo ag fadhiistay hooyadii markaasuu ku yidhi hooyo xuuq buu ku yidhi intuu burida la soo baxay markaasay tiri hooyo kii aabbaha baanu ka baqan weynay halkaa iska fadhiisa bay ku tiri Farmaajo waxaan leeyahay intaad xuuqday naga dayso kuwii ka waaweynaa iyo dhibaatadii naga soo martay waad garanaysaa 40 sano iyo 35 sano ka hor haddii dagaal wax lagu qaadayo kaasa wax lagu kala ayaa muxuu ahaay aad wax ku soo dhicin lahayd geesta kale Cali Maxamed warcadda waxa uu diray fariin salaadiin muddooyinka ugu dambeeyay hawada isu marinaysa fariimo kulli diyaah nabadgelyada guud ee qaranka xillada foosha xun iyo hadallada foosha xun ee hawada isu marinayaan ee ay maqashiinayaan dhagaha nadiifta ah ee ummadda reer Somaliland qulubtooda inay wax ku yeelaan iyo wadajirkooda ay doonayaan inay ka waantoobaan isla markaana waxaan ku boorinayaa hay'adaha sharciga iyo ciidamada amniga in sharciga la horgeeyo cid kasta oo ka waantoobi weyda ficilada iyo hadallada xun ee bulshada reer Somaliland lagu kala dilayo ee hawada la isu marinayo hadduu bariga Somaliland joogo iyo hadduu galbeedka Somaliland joogaba bulshada reer Somaliland waxaan ugu baaqayaa inaanay dhag u dhigin
luqmaan maxamed faarax bulsho TV hargeysa.